الحير كان داهر على سو مشو كسو قليا إيه شيء إيه كابتن أيوب إيو شينا علي إيو وهذا تمركو إيربوت كسو دوق حبس الله طحابة يدي dadka marka wax loo tabinayo qofka wuxuu tabinayaa waa inuu yahay qof luqadii wax ku tabinayay luqadihii kale oo wax ku soo baarayay iyo wixii oo dhan ka dhisan waxa kamid ah wariyaha waxyaabaha laga rabo inuu marka uu warka sheego uu ra'yigiisa iyo taxaliilintiisa iyo faalihiisa ku darsan karo oo ummadda wax u bayaamin karo anaga waxaan ka hadlaynaa warbaahin dhab ah ka hadlamayno warbaahin lagu shaqaysto oo qofku uu shaqo u soo raadsaday isagoo aan aqoon lahayn oo ka daroob aad ka noqday sida la sheegayo noloshii kale ama aqoonti tafatiruhu waa inuu khibrad badan leeyahay waa inuu deegaanada iyo siyaasadda iyo wacyiga wadanka ka jira wax badan uu la soo socday wax dawladda dhexdeeda weeyaa qof buka iyo qof la xiray iyo wax kale iyo mudaharaad iyo midna lama oran waxa soo dhan sir dawladeed maaha waa wax xogaa dawladda la xiriir faafreebka hordhaca waa reeban yahay waxa la diidan yahay qofka warbaahinta ka socda ama suxufiga ah su'aalaha uu wato inay og tahay qolada dhinaca kala ah oo wax weydiinaysa in laga dhigo deeda qofka saxafiga noqonaya 22 falan gacanta taagan shan iyo 20 mudan ayaa u codeeyay in deeda 22 oo soo jeedinta guddiga loo daayo 5 mudan ayaa u codeeyay in 18 laga dhigo deeda diidmadu waa hal mudan ayaa ka aamusay guddoonka saddexna ma codayn كورمكنا وصدني شن قلب كاس مركا سديساس أيا 22 لو قدينيا وريه مدح بنان وحق ليه هاي وحول وأكريده أما سورس يجلس وصحي هاي إنه شيء for example هدي الدولة يجشوا corruption سميسو هدي عدالة حمو هدي منطقة نادتك لإسكاد حلو وهي نوع عساه وريه وريه إنه سمي investigation إنه سميه إنه السلاح جيرو ده أو سوف سليو marka waxaan rabnaa qodobkan aalada sirta dawladda maxay tahay sirta dawladda ooriyo aan sheegi karin xilbaane dawladdu sir waa leedahay sirta dawladdu waa wax jira oo aan la rabin in la faafiyo oo ay dhibaato ka dhalanayso warka la faafinayana waxa loo faafiyaa dadka inay maslaxad ugu jirto oo bulshada la gaarsiiyo wax xog wariyuhu leeyahay maaha waa xog la rabo dadweynaha in loo gudbiyo dadweynaha marka waxa loo gudbinayaa wixii khuseeyo oo iyaga masaalixdooda iyo danooda ka hadlaya laakiin wixii dawladda sir u ah oo hadii la faafiyo ay dhibaato ka soo gaarayso ummadda iyo dawladda weeye waxa laga hadlaya inaga horta markaan ku jirno warbaahinta wax diideyno waxaan ku dhex jirnaa xaydaamka Puntland baan ku dhex jirnaa laakiin waxa jira wariyaal ama Soomaaliya u dhashay ama Puntland u dhashay ama waqooyiga u dhashay ama gobolada kale Soomaaliya u dhashay oo caan ka ah baraha bulshada saxaafadana maartay saxaafadahan loo ictiraafsan yahay mararka qaybtoodna iyagu ka qayb qaata bulshada dhibaataynteeda sida daahir cali soo iyo ninka la yiraahdo kabtan ayuub iyo shiina culay iyo hadhowto markuu daahir cali soo xamar ka digo waa ogtihiin oo xasan sheekh madaxtooyada ku soo dhaweynaya waxa uu sameeyana waa ogtihiin kuwa kalena waa la mid macnaha qofkii noocaas ahaa oo aynu garanayno dee nooca uu yahay markuu Puntland yimaado see uga mid noqon karaa oo xabsi loogu taxaabi karaa qofkii ilaa waa aragtaan wixii hadda wax iska noqotay qabiil oo ninku markuu qabiil iyo reer iyo balaaduur isagoo waxa saxan ku hadlaaya baaba dawladnimadii lagu difaacaya ama la soo dhaweynaya ama madaxtooyaha lagu soo dhaweeyo waana wax iska fidna oo aan sax ahayn marka dadka noocaas ah waxa rabnaa gudidu meelna ma ka soo gashan xeerkan waxa laga yaabaa hadda radaan ka hadlayna ay tiraadeen xagga dambu kaga jira bal xeerkan daahir cali soo meeshu ka soo galaya ii sheega iyo kabtan ayuub iyo shiina culay iyo oo hadhow tamarku airport ka soo duga xabsi loo taxaabayo dii waan la sii deyneen waayo waa ognahay moogtahay dhibaatada ay ku hayaan wadanka waa maasanti xildhibaan xeerkan ka shaqeynayna waa xeerka warbaahinta iyo baraha bulshada saddex qodob baa lagu soo kordhiyay xeerkii hore nimankan hadda sheegtay oo daahir calasow iyo kabtan ayuub iyo hadde anu kulay intaan ogahay saxafiyiin ma aha niman afku xooglayaal oo social media ku shaqaysta weeye marka inna waxaan ka hadlaynaa waa saxafiyiin rasmiya xeerkanina wuxuu u shaqaynayaa waa dadka aynu soo sheegnay iyo xeerarka aynu soo ansixinay dadka mihnada ale weeye marka haddii aad su'aashaadu ay tahay dhinaca baraha bulshada maadaama xeerka uu ku jiro dhinaca su'aashaadu ku saabsan tahay waxaan isleeyahay
waxa weeye wixii talo iyo tusaalaha idinku ku dartaan ka baarlamaan ahaan oo ku darayna insha Allah xeerka inteenu hadda aad baa loo soo loogaa marar badan ama wararka beenta ha ahaato ama isku dirka ha ahaato ama waxyaaba aan anshax ahayn ama nidaam ahayn in la qoro ha qoreen ama waraysiyadooda iyo waxa ay qaadayaan iyo dooday keenayaan oo laga yaabo qaar badan inaanay wax nafacad dadka u lahayn wixii la rabay in la baaro oo la investigate gareeyo oo macna laga sameeyo aan laga sameeyay waxaasoo dhan waxay la xiriirtaa mararka qaar kood aqoonta xirfadda backgroundka age sidoo daayay xilbaan kula sheegay waxa loo xigtaa inay dad badan oo aan nidaamka waxbarasho caadiga ah marin galaan marka taas baarlamaanku waxa la rabaa inuu ka jawaabo ma taasaynu ku qanacsanaa waxaynu ilaalinaa la dam go ahead tooda ku socdeen bise shuruudahan iyo waxyaabahan guddiga ku jiray oo wasaxan tahay baynu kala saaraa deeduna waa la mid marka anigu waxaan qabaa waxyaabahan tayada la xiriira in la daayo waa laga yaabaa inaan la dabaqinba macmiil shirkadda isgaarsiinta ee Golis waxay ku haysaa adeeg internet xawaare sare leh qiimo jaban aad ku gashan kartid gurigaaga ama goobtaada ganacsiga fiber optic shirkadda isgaarsiinta ee Golis waa kan ugu xawaaraha sareeya guud ahaan dalka si aad isaga diiwaan gelisid fadlan wac lambarka gaaban ee 181 ama booqo xarumaha shirkadda Golis